الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، waxaan sagootineynaa sanadkii hijriga ahaa 1437 taariikhda hijriga sanadkeedii baa dhamaada. waxaan bilaabaynaa sanadkii ku xigay 1438 ayaan bilaabaynaa hijriga. sanadka cusub ay inoo bilaabanaya iyo taariikhda qiimaha badan waxay mudan tahay in la isdul taago. taariikhda hijriga ah ee maraysa 1438 inoo bilaabanayso. waxaa taariikhda bilaabay الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. xilligu muslimiinta u talinayay ayuu la tashaday saxaabada ridwaanullaahi calayhim. muslimiintu inay taariikh yeeshaan waa laga maarmaan. xaggeen ka bilownaa? haddii la tashaday cumar iyo saxaabadii waxay la noqotay taariikhda muslimiinta in laga bilaabo dhacdo aad u qiimo badan oo qaali ku ah taariikhdeenna. wakhtigay dhacday in laga bilaabo taariikhda muslimiinta. dhacdadaasina waa dhacdadii hijrada nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh. dhacdo waxay ahayd taariikhi ah oo adduunka qaabkuu u socday wax badan ka beddeshay. dowladdii nebi maxamed uu magaalada madiine ka dhisayna bulukeetiga asaasiga ah ama asbaabtii ugu muhiimsanayd ee u gogol xaadhay dowladdaasi inay dhisanto bay ahayd hijradii nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. hijrada iyo qisadeedu waa arrin taariikhi oo qiimo badan, duruus badan baa ku jirta, cibar baa ku jira. maanta marxalada muslimiintu ay marayaan iyo wakhtigaasi xaaladii jirtay waxaa jira isu ekaan fara badan iyo duruus maanta ina anfacaysaynu ka qaadan karayno. si ahaanteedana ruuxa muslimka ah inuu diintiisa ka warhayaay waa laga maarmaan. in badanoo inaga mida waxaynu naqaanaa taariikhda miilaadiga loo yaqaano ee shamsiga ah, laakiin taariikhda hijriga ah iyo sababteeda iyo siday ku timid iyo bilaheeda in badanoo inaga mida inagoo muslimiin ama naqaano. waa ceeb weyn wey. taariikhdaasi waxay salka ku haysaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh. wuxuu dacwada ka bilaabay ku dhashay dacwadiisana ka bilaabay magaalada maka. reerkuu ka dhashayna ay deganaayeen oo asal u ahaa. halkaa markuu bilaabay nebigu dhib badan buu la kulmay. dad yar baa soo raacay. dadkii raacayna dhib badan bay la kulmeen. isagana waa la rafaadiyey nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh. intaasoo goor buu magaalada ka baxay oo bal qabaa'il kaleo cid kaloo rumaysa inuu helo oo lasoo dhagax tuuray oo lasoo dakhray oo lasoo dhaawacay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh. dhib badan baa loo geystay. ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu xifdiyey oo naftiisa ka xifdiyey in la dilo iyadoo la isku dayey. wallahu yacsimuka min annaas, ilaahay baa ilaaliyey oo xifdiyey. xaaskiisii khadiija oo ahayd islaan aad u caqli badan, nebi maxamedna garab u ahayd, ilaa maalinkii waxyigu ku bilowday ilaa maalinkay ka geeriyoonaysay garab u ahayd, wehel u ahayd nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh. xaaladdu markay ku soo adkaataba nafis u ahayd nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh, way geeriyootay. adeerkii abu aalib oo loo mari waayey oo difaaci jiray oo nin la ixtiraamo oo qurayshi ka dambaysa ahaayoo nebiga sal alla alay wasalam hoosta gashaday oo loo mari waayeyna isaguna waa geeriyooday. nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ku soo bannaanaatay cadowgiisii iyo odayaashii quraysheed iyo waxay rabeen inay sameeyaan iyo cid hor istaagtoon lahayn. xaalad adag. qurayshi waa isu timid, odayaasheediina waa tashadeen oo shir baa la qaatay. saddex talaal la soo jeediyo quraanku sheegay suuratul anfaal
qoliyo waxay yidhaahdeen war ninkan aan xabsi gelinno aan cidina la xidhiidhin guri ha lagu xidho meel ha lagu xidho sharkiisana sidaa aynu kaga nabadgalno qoliyana waxay yidhahdeen war maye wiilal intaynu ururino qabaa'isha reeraha ka dhashay si aan qabiil gooniya dhiiggiisa loogu raacanin intaynu intaasoo qabiil wiilal ka keenno hal mar ha wada dileenoo dhiiggiisa aan qaybsanno aw yaqtuluuka inay ku dilaan way qorshaha saddexaad ee la soo jeediyey waxa weeye ma ahee aynu dhulkeenna ka erinoon masaafurinoo meeshii kale uu aadaya ha aado saddexda talaad markii la soo jeediya waxaa la go'aansaday labada kaleba socon maayaane ninkan aan khaarijinoon isdhaafino allaha tabaaraka wa tacaala kownkan maamula waxba isan ka qarsoonayn arrinta waa la socdaa sidaas daraaddeed alla wuxuu yidhi wayamkuruuna wayamkurullah dhagar bay degayaan oo qorshay dejinayaan allana tiisu waa meel toodana waxba ka socon maayo wixii ay isku dayeen waxba socon waayo rabbigii markuu ogaaday go'aanka in la gaadhay ayaa nebi maxamed waxaa loo fasaxay inuu hijroodo magaalada ka baxo intii hore oo dhan saxaabadiisu waa baxayeen waa hijroonayeen ardul xabashay aadeen madiina qaar baa aaday meelo kale qaar baa aaday laakiin nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa la yiraahdaa bixin magaalada joog xaaladdu markay halkaa gaadhay baa la marka bax marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markaas saxaabadiisa wuu wargeliyey meesha loo socdo tilmaamaheedu siiyey nebigu sallallahu alayhi wasallam sida Aisha tilmaamaysa xadiidka Bukhari ku yimid waxay leedahay nebigu sallallahu alayhi wasallam muslimiinta wuxuu ku yidhi meeshii aad u hijroon lahaydeen iyo degmadaynu aadi lahayn ayaa la ii waxyooday wuxuu u sheegay inay tahay dhul ay timirtu ka baxdo wuxuu u sheegay meeshaas iyo magaaladaasi inay u dhaxayso laba taag oo dhagax madow ah laba taag oo mid walba dhagaxiisu madmadow yahay ayay ku dhex taallaa intaa markuu sheegay dhulka waa la yaqaanay way fahmeen saxaabadu markiiba meeshaasi inay madiina tahay wixii maka ku dhibanaa markaa waa baxeen madiina la aaday xataa raggii u hijrooday oo ardul xabasha hadda ka hor aaday warkaasi markuu gaadhay waa soo laabteen oo madiinay aadeen halkaasaa la isugu tagay laakiin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wali makuu jooga halka markay marayso Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu nabigeenna saaxiibkii ayaa isaguna isdiyaariyay inuu dadka baxaya ku darmado nabigu markuu ka war helay wuxuu ku yidhi maya tartiibso habixina sug buu ku yidhi waxaan rajaynayaa in aniga laftayda la ii idmi doono la ii ogolaan doono bixitaankee sug buu ku yidhi Abu Bakr wuxuu ku yidhi oo rasuulka Ilaahay ma rajaad ka qabtaa in lagu ogolaado haa buu yidhi Abu Bakr marka waa isreebay oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inaad jidka la martood raacdo oo aad jidkaasi kala qayb gashaa maxaa ka weyn wuu sugay safarkiisa iyo socdaalkiina waa baaji wuxuu diyaariyay Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaaha laba neef oo geel ah ayuu calfiyay oo dheefiyay 4 bilood buu diyaarinayay oo dheefinayay oo uu caleenta iyo cuntada xoolaha kuwa ugu qaalisan buu siinayay si ay jidka dheer uga baxaan waa jid la marayo oo kulul oo mana ah oo qorrax ah oo aan sahlanayn oo usbuuc la sii soconayo oo haddana cabsi aad qabto oo aad doonayso inaad laalaab iyo warwareeg gasho gaadiidkeedii buu u diyaariyay Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ardaa Aisha waxay leedahay radiyallahu ta'ala anhuma maalmaha kamida annagoo guriga Abu Bakr fadhino joogna xilliguna harsiimadii uu yahay xilliga qorraxdu ugu kulushahay la joogo ayaa Abu Bakr ma arkin nabiga sallallahu alayhi wasallam ruux kale oo meesha joogay baa nabiga ishiisu nabiga ku dhacday markaasuu ku yiri Abu Bakr oo nabi Maxamed waa ka rasuulkii waa ka asaga oo madax daboolan oo madaxa qarsaday waqtiguna waqti uu iimaan jiray ma nabiga sallallahu alayhi wasallam naam saaxiibkii waa soo booqan jiray laakiin saacadahan duhurkii xilligan kulul laguma aqoonin inuu guriga yimaado soo booqdo salawaatu rabbi wa salaam alayhi saacadii ma aha waana kan nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaam alayhi Abu Bakr markiiba wuxuu yiri aabahay iyo hooyaday ayuu igala qaalisan yahay oo dhaafsanayo oo ku furanaya
ilaahay baan ku dhaartay waqtigan arrin baa wada buu yiri waxba jira iskama socdo nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kadibna nabigu gurigii buu yimid idan buu weydiistay ma soo gal baa la yiri waa loo idmay nabigu markuu soo galay sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar wuxuu ku yiri dadka guriga ku jira oo dhan saar buu ku yiri leesh laana sir culus buu wadaa sir aan la rabin cid kale inay ogaato haday baxdana khatar ah ayuu nabigu xambaarsan yahay raba saaxiibkii inuu u sheego dadka guriga jooga saar buu ku yiri Abu Bakar wuxuu rasuulka Ilaahay waa uun ehelkaagii wax laga baqa meesha ma joogo waxaaskaagi Aisha ilaa markaa nabiga way ku mehersan tahay iyo walaasheed Asma binti Abu Bakar iyo saaxiibkaayo Abu Bakar ayaa kale nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markiiba warkiibu u dhiibay oo wuxuu ku yiri Abu Bakar ina baxal la ii idmay wala ii ogolaaday inaan baxo waana baxaya markaas Abu Bakar wuxuu yiri rasuulka Ilaahay ma ku raaca ma kula saaxiiba haabu wa israa'ina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu wuxuu yiri rasuulka Ilaahay labadan halood labadan neefe geelan diyaariyay oo calfiyay labada mid kamida qaado midna ana ku baxay midna adigu ku bax nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu yiri bilaash ku qaadan maaye lacag baan ka siisanayaa bithaman na'am bithaman duruusta ina umaan doonta meesha waxa ku jira darsi muhiim ah lacag baan ku qaadanayaa waa sikaa gudoomay Aisha waxay leedahay radiyallahu ta'ala anhuma nabigi iyo aabaheed Abu Bakar waa diyaarinay waxaan u diyaarinay sahaydii alaabtoodii baan isugu dubaridnay sahaydii baan weel ugu ridnay weelkii markuu diyaar yahay Asma binti Abi Bakar ba intay suun ay dhexda dumarku ku xidhan jireen soo furtay laba u kala jeexday bay mid kamida afka kaga xidhay si ayna sahaydu uga daadanin meesha ay la baxday naanaysta la yiraahdo daatun nitaaqayn Asma meesha looga bixiyay halkaas way diyaariyeen safartii bay diyaariyeen labada gabdhood ee Abu Bakar dhalay midna nabiga xaaskiisa ah salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kadibna nabigi Abu Bakar waa bixeen markay bixeen xagee la aadaya dhankii magaalada Madiina ay jirto laga filayay inay u bixi doonaan umayna bixina cagsi bay u bixeen mid labaad weeye safarkooda mama ayna sii wadanine buur magaalada aan ka fogeyn oo la yiraahdo yaani wax weeye muxuu ahaayay Gharu Thawr la yiraahdo Jabal Thawr la yiraahdo god korkeeda ku yaal waa buur aad u dheer cidii xaramkeed ma ka tagtay baa garanaysa buurta korkeeda god ku yaala ayay galeen saddex habeen bay meesha ku jireen raacadadii iyo wixii raadinay Quraysh waxay ballan qaaday cidii soo hesha 200 oo neef oo geel u leeyahay waxa la wixii cayd aha iyo wixii damac ku jiray iyo wixii maalin inuu ku taajiro raadinayay oo dhan ayaa marka cagta qaaday oo tilaabo qaaday magaaladii hal raad qaado xagga laga raad qaado nin walba maanta ku guuleyso 200 oo halaad oo bilaash ah waa la baadi goobaya nabiga iyo saaxiibkii godkaas ay galeen saddex habeen bay ku jireen saddexda habeen maxay cunayeen saddexda habeen se magaalada waxa ka socdiya waxa Quraysh ku tashanaysa say uga warhayeen intuu nabigu amba bixin salawaatu rabbi wa salaam alayhi saaxiibkii ayaa waxa la dirjiyay qorshe dhameystiran oo kaamila iyo khotto iyo barnaamij iyo istiraatiijiyad dhameystiran oo waxaan oo dhan waa laga tashaday waa la sii dajiyay nabiga salawaatu rabbi wa salaam alayhi muddaday meesha ku jireen cuntada say ku helayeen waa khudbadeena dambe say u diyaarsadeen cidii bixisay say ku baxeen waa khudbadeena dambe laakiin waxaynu ku hormaraynaa magaalada say kaga warhayeen waxa jiray nin dhalinyaro ah oo Abu Bakar uu dhalay oo la yiraahdo Abdullaahi ibn Abi Bakr as-Siddiq la yiraahdo oo wiil yar oo dhalinyaro ah oo aqli badan oo fahmo badan oo dhug badan ah ayaa wuxuu ahaan jiray habeenkii buu iyaga la baryayaa nabiga Abu Bakar godku ku la baryayaa intaan waagu bariino xilliga suxuurta la joogo
waabarkuna soo dhow yahay ayuu ka soo guurayaa magaaladii buu imaanayaa xilli aan waagu baryin markaasuu iska dhigayaa si ruux magaalada baryay oo kale quraysh hadday raadin lahayd oo ku baraarugi lahayd oo la dhihi lahaa war wiilkan yarka ah bal hal raad qaado habeen buu baxaa habeenna waa soo galaa maalintiina magaalada lagu dhex arkaa warkani habeenkii uu inala baryay waxba xaqiisa ma jiraan maalintii oo dhan intuu joogana warkuu ururiyaa shirarkuu tagaa fadhi ku dirirkuu tagaa waxay damacsan yihiin buu ururiyaa warka magaalada markuu soo xambaaro ayuu haddana fiidkii guureeyaa nebigiiyo saaxiibkii buu u tagaa wixii magaalada ka socday buu warbixinteeda siiyaa saasaa lagu sheekaysanayay saasaa la lahaa damacu saas weeye wixii oo dhan buu u koobayaayoo godka ugu geynayaa haddana subaxda dambe waa soo guuraynayaa nebigiiyo saaxiibkii iyagoo godka ku jira magaalada wax kaga maqnaa ma jirin qorshe la dejiyey buu ah saddexda habeen maxay ku noolaayeen risqi xaggee ka soo galayay soo lama soo raad qaadin raashinka marka loo keenayay ودروستنا دنب إن شاء الله تعالى إيه قصة إنوسي سعوته صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك